madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ay weeliyaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka qaranka taliyaha ciidanka booliska saraakiil iyo xubno kale ayaa kormeer ku soo maray taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland xadhigana ka jiray mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay miiska saraakiisha ugu horeyntiina madaxweynaha Soomaaliland ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland inta ka bacdina wuxuu madaxweynuhu kormeeray mashaariicda kala duwan ee laga hirgeliyay miiska saraakiisha markii kormeerkaasi dhamaaday waxa warbixin madaxweynaha halkaasi ku siiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami iyo taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Sareeye Gaas Ismaaciil Shaqale oo ka warbixiyay mashaariicdan kala duwan ee laga hirgeliyay miiska saraakiisha waxaana yiraahdeen wax faa'iido weyn laba cadaaday waxaynu ku ogeyn xadaafiirta dhulka kale inay maraan militarigu waxaynu ku noqonayaan quruxda ba aqoonin waxaynu ku noqonayaan simirkan u baranay ku sii bixanayaan waxa maanta muuqatay inay shaqaladii kororsadeen marka mudane madaxweyne annaga oo dhinacayaga kor uga qaadayna tiigsanaynana halganka iyo dadaalka aad ugu jirto dhismaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa noo qabsoomay 2015 hawlo fara badan madaxweyne wadada maanta aad ka furtay halkan miiska saraakiisha dhererkeedu mitirka marka loo qaato waa 700 oo mitir way laabmaysaa guriyay hormaraysaa waxa kale oo isagana mudan inaan sheego garoonka ciyaaraha ee ugu qurux badan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhisan miiska saraakiisha maanta miiska saraakiisha halkan maadaanu furo qiimo iyo qaada weyn leh saraakiisha waxaan ku faano ciidanka iyo waxaan ku faano qaranka ku faano oo waxa dalka daafaca oo waxaan aad iyo aad aan anaguna ugu faano oo qiimo weyn iyo qaabo weyn noole farxad wabidoota inaanu maanta ka soo qayb galno xafladda tan insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in halka aynu hore uga sii marro ugu dambeyntiina halkaasi waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.